adduunyadan aad ku nooshahay meel lagu nastay inaanay ahayn, meel raaxa ma waa meel ilaahay uu ugu talagalay welibana qofka mu'minka ah ilaahay uu ugu talagalay inay u noqoto cidhiidhi. ilaahay wuxuu yidhi laqad khalaqna alinsaana fii kabad, insaanka waxaanu ka abuurnay fii kabad ay fii mashaqa, waxa weeye dhib. waa aragteenoo dee haddaad masaariiftaada la soo baxayso wax miiska kuu saarani ma jiraan, tacab iyo saamaleyl iyo kallahaad iyo badaha in loo fuulo wakhti badan lagu bixiyo, tacab baa lagula soo baxaya. ubad haddaad u baahato tacab baa ka horreeya, caafimaad haddaad u baahato tacab baa ka horreeya, inaad is ilaaliso. noloshoo dhan baa waxay ka samaysan tahay fii kabad ay fii mashaqa ayay ka samaysan tahay. welibana xilliba xilligu ka dambeeya way sii caddaanaysa. waa aragteenoo waxa weeye waxyaabaha naftu jeceshahay oo dhan baa hadda laynooga digaya, oo macaankii ha layska ilaaliyo, caafimaadkaagu waxyeelaya, baruurtii ha layska ilaaliyo. naftu waxay iska jeceshahay inay fadhido nasato. waxaa la yidhi dawadaadu waxay ku jirtaa inaad socoto, socodkii waa lagu daalaya. waxaa la inaad socotaad ku dawoobaysaa, waa tacab. laakiin haddaad iska fadhiisato cunto aad cabto macaanno iyo xanuunnaa laga yaabaa inay kugu dhacaan. noloshu waa tacab, waa cidhiidhi. qadiyadda labaad waxaa sii weheliya adduunyadanaynu ku nool nahay qofku inaan loo joogtaynayn xaalad wanaagsan, yataqallab min xaalin ilaa xaal. hal xaalad oo wanaagsan oo joogtaa qofna heli maayo. ilaahay wuxuu uhi watilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas yowmun nusaa wa yowmun nusar yowmun lak wa yowmun calayk. maalin adaa leh, jaanis bay kuu tahay, waa maalin aad caafimaad qabto, waa maalin noloshu ku wanaagsan tahay, waa maalin ay isugu kaa toosan tahay, maalinna waa kugu jiiftaa. adduunyadu hadday maalin kaa qosliso maalin kalena way kaa oohinaysaa. maa adxakat ilaa wa abkat, hadday kaa qosliso waxaa hortila inay kaa oohinayso. walaa sarat ilaa wa asaa'at, hadday ku farax gelisa maalmay ku naxdin gelinaysaa. xaaladda adduunyada saasa waana wax cid waliba og tahay. maalin dhoweyd nin asxaabta ka midoo aanu wada shaqayno ayaa subaxii baanu u taaniyadayno wiilkii ugu horreeyey baa u dhashay. waa wiilkii curad weeye, farxaddiisa waynu fahmayna. horta goblonnimaad kaga baxda, wiilkana waa la sii jeceliya, wiil buu ku curd. gelinkii hore waanu u taaniyadayna, gelinkii dambena ayaydii hooyo ayaa dhimatay, waanu u tacsiyadayn. farxaddiisu ma dhammaystirmin. gelinkii horena waa faraxsanaa, laakiin farxaddii may joogina saacada ka bacdi waxaa yimi murugaa timi. adduunyada xaalkeedu waa sidaas. sidaa awgeed baa alla subxaanahu wa tacaala jannada markuu ammaanayo, waxa jannada lagu ammaano waxaa ka mid a inaan imtixaan iyo musiibo iyo belo jannada aanay kugu imanayn. walwal iyo walbahaar, diiqad iyo cidhiidhi, daal iyo dhibaato inaan jannada aan laga helayn. laa yamasuhum fiiha nasab wamaa hum minha bimukhrajiin baa ilaahay yidhi. jannada laguma daalo, wax cidhiidhiyo ku dhibaa jannada kuugu iman maayaan, lagana bixi maayo, oo waa lagu waarayaa. oo walwaliyo cidhiidhi ka weyni ma jiro intaad wanaag dhex gashay lagu yidhaahdo waxaad haysataa muddada intaa leeg, maxaa ku xiga? waad ka dhex baxaysa.
adduunyada xaalkeeda saas laakiin jannada marka la doonaya in la ammaano walahum fiiha naciimun muqiim khaalidiina fiiha abada waxa jannada aad loogu ammaanaa walwal iyo diiqad iyo cidhiidhi inaanu ku sugnayn iyo qofka galaa weligii inaanu ka baxayn maanta dee xilalkaa loo ordayo waxaa ugu weyn dee dalkan inaad madaxweyne ka noqoto ayaa ugu weyn xil adduunyo la qabto soo saama isagaa ugu weyn uu ugu fadli badan yahay ka hadli mayno ugu khayr badan yahay ka hadli mayno laakiin wax dadku ay u ordaan waa ka ugu weyn dee waa aragteena waa muddaysan yahay xilli buu ku xidhan yahay waa muddaysan yahay inta horena xiloo dhanna waa saas sanadka hore iyo labada horena waxaa la leeyahay uu la qabsanaya waa cusub yahay inta dambena walwalkii wakhtigii dhammaanaya baa la gelaya ama dee iskuul maamulaha ka noqdo ama jaamacad ama shirkad ama dal ama gobol marka wixii loo muddeeyo u dhadhami mayso waayo wuxuu eegayaa wakhtigii buu tirinayaayo wax la tiriyeyna dee waa wax kooban weeye waa waxaad isaga kooban waa maalmaha hadda isu tegaya wakhtiguna waa dhammaanaya qofku muxuu ku nastaa muxuu ku raaxaystaa ishiisu waxay ku maqan tahay maadaa bacdu war 3 sane la ii magacaaba hadday dhammaato maxaa ku xiga tolo xagaan ku dambayn doonaa ma la soo celin doonaa ma la ii jadiidin doonaa ma la kordhinayaa walwal baa gelaya adduunyada xaalkeeda noocaas haddii lagu siiyo shaqo wanaagsan oo aad in badan ku taamaysay dee shaqada dad baa kuu igmaday oo kuu dirsaday oo ku maamula oo iska leh intaad sii wadi doontaa qofkii wuxuu qaadayaa walwal ama subax inta la iska kaasannifo lagu yidhahdaa fasax baad bishu hadday dhammaataa soo shaqo tegi oo waxaagu halkaa ku go'a adduunyada walwalladaasi ma dhammaadaan xaaladdan aad ku sugan tahay way isku toosan tahay laakiin waxaad ka baqaysaa waxa soo socda sidaa awgeed baa alle subxaanahu wa tacaala jannada wuxuu ku tilmaamay laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun wax ka tegayna ka murugoon maayaan wax soo socdana ka biqi maayaan waa labada adduunyada aynu la ildarannahay qofna wuxuu la tacaalayaa dhibkii uu soo maray xaalkan uu hadda ku sugaya waa wanaagsan yihin laakiin wuxuu xasuusanayaa dhibaatooyin soo maray ubad laga qaaday waalid laga qaaday masaa'ib kaloo ku timi xaalado qallafsana uu soo maray markuu kuwaa xasuusto waxa weeye murugo iyo cidhiidh iyo diiqad baa gelaysa xaaladdan uu ku sugan yahay iyadoo ay wanaagsan tahay wuxuu ka baqayaa mustaqbalka tolo maxay ku dambayn doontaa mustaqbalku muxuu noqon doonaa sidan ma lagu waari doonaa ma sii socon doontaa horta ogow adduunyadan gebigeeduba xaalkeedu inuu sidaa yahay qaacidada labaad almru kulluhu lilaah qul ina alamra kullahu lilaah waxaad ogsoonaataa waxa kownkan ka dhacaya dhammaanteed xagga alle inuu ka yimi haddii wanaag kugu yimaado oo ilaahay uu ku siiyana waa min allaah haddii imtixaan kugu yimaadana waa min allaah wuxuu leeyahy nabigu calayhi الصalaaةu wasalaam wاclam ana اlummata low اجtamacat calى an yanfacuuka bishay lam yanfacuuka ila bishayin qad katabahu allahu lak ummaddu hadday isu tagto dhammaanteed si ay wax kuu anfacaan oo waxtar ay kuu siiyaan waxba kugu tari maayaan wixii ilaahay uu kuu qoray mooyaane ummaddu hadday isu timaaddo gaal iyo muslim si ay kuu dhibaateeyaan dhib ilaahay aanu kuu qorin ku dhibi kari maayaan oo awoodu ma laha halkaana waxaad ka qaadanaysaa musiibo kastoo kugu timaadda inay tahay min allaah ilaahay xaggiisa inay ka timi qaacidadaana maskaxdaad ku haynaysaa ilaahay muxuu imtixaanay
maxay musiibadana igu timi maxay saaxiibada igu dhici weyday maxay dadka iga agdhow ugu dhici weyday aniga igu dhacday tan noocaasa xikmad buu alla subxaanahu wa tacaala ka leeyahay qodobada dambaynu ku tilmaamayno qaacidada saddexaad waa inaad ogsoonaataa kullu karbin macahu faraj wa kullu cusrin macahu yusr dhib kastoo yimaada wixii faydayay baa la socda culays kastoo kugu yimaada waxa la socda fududayntiisii baa la socota ilaahay waxau idhi fa inna maca alcusri yusra culays kastoo kugu yimaada fudayd baa la socda hadda lama odhan fa inna bacda alcusri yusra lama odhan culaysku markuu kugu yimaado waxa ka daba imanaya lama odhan ee markuu culaysku kugu imanayo fududayntiisiina waa la socotaa furayaasheedii inaad doontaa lagaa doonaya wuxuu kaloo leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam waclam ana alnasra maca asabr wa ana alfaraja maca alkarb guushu waxay la socotaa in la sabro faydkuna iyo farajkuna wuxuu la socdaa dhibka ayuu la socdaa idan waa inaad ogaataa dhibaato kastoo kugu timaada wixii faydayeyna inuu la socdo laakiin la doonayo waddadeeda inaad u marta lagaa doonayo qawaaciddaa markaynu isla fahanno waxaynu u gudbaynaa furayaashaynu u gudbaynaa furaha koowaad ee faydka iyo farajka keena waa athiqatu billaahi caza wajal ilaahay inaad ku kalsoonaato xusnu danni bihi ilaahay inaad malaha ku wanaajiso wax wanaagsan alle subxaanahu wa tacaala inaad ka filato oo dhibaatadii kugu timi inaad u dareento inay tahay khayr iyo wanaag ilaahay uu kula doonay oo musiibooyinka waxyaabaha keena waxaa ka mida gaabis aad samaysay wamaa asaabakum min musiiba fabimaa kasabat aydiikum dhibaatooyinka idinku dhacaya ka bulsho ahaan iyo dhibaatada kugu imanaysa ka shakhsi ahaan adiga kugu imanaysa waa waxaad kasbatay oo adigu aad samaysay baa ilaahay leeyahy wayacfuu can kaiir ilaahay in badanna waa inoo cafinayaa oo waa inoo dhaafayaa oo hadduu inagula xisaabtamayo waxaynu samaynayno taaka taako waxa weeye cidiba ma soo hadheen cidina ma badbaadeen walow yu'aakhidu allaahu annaasa bidulmihim maa taraka calaa dahriha min daabba dulmiga aynu gelayna ilaahay hadduu inoo qabanayo oo khaladka aad gashaba ciqaabtiisa lagu soo dadejinayo cidina adduunyada korkeeda kumay hadheen buu leeyahy alla subxaanahu wa tacaala idan horta waa inaad ogsoonaataa taabashadan lagu taabtay in alla subxaanahu wa tacaala uu doonaya xaggiisa inaad u soo noqoto in lagu baraarujinayo in lagu xasuusinayo in ilaahay lagugu xidhayo in waxa weeye aad xasuusanaysa dunuub aad samaysay kadibna aad ka toobadkeenayso taana dareenkeedu wuxuu ku imanayaa hadba qofka xaalkiisu siduu yahay raggii salafka ahaa waxay odhan jireen ee dadaalka badnaa ee cibaadada badnaa wuxuu odhanayay maalinta aan dembi galo waxaan ka gartaa dameerka aan fuushanahay guriga markaan gaadhana islaantaan ka gartaa khalad haddaan galo waayo dembigiisaan badnay innagu dawan iska dhex dabaalannaa dabeedna masaa'ibtu markay iska daba timaaddo in badan oo ka midii waxa weeye waxa laga yaabaa inaanu garan halka looga yimi iyo gaabiska uu ku sugan yahay inaanu dareemin baa laga yaabaa wuxuu idhi guriga markaan tagana xaaskaa igu kacda islaantiioo cadhaysan oo isku buuqsan oo meel laga haysta aanan fahmayn ayaan guriga ugu tagaa waxaaba laga yaabaa ilaa maanta qadana kumaanaan samaynay naga tag dabeedna wuxuu yidhaahdaa waxaan ogaadaa khalad iyo gaabis maantaan alla ka galay in alla subxaanahu wa tacaala uu igu soo jeediyey gaadhigii baabadda istaadhmi waayey
cilada ku yimaadeen makiinadii baa qaraxday gubatay waxyaabo kale waxa laga yaabaa hawsha ama culayska kugu yimi inuu yahay gaabis xaggaaga ka yimi taasina ay tahay ilaahay inuu kugu dambi dhaafayo mar haddii dembigii lagu qabtay oo lagugu ciqaabay adduunyada taa macnaheedu waxay tahay kafaara gud bay kuu tahay sida nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam man yurid illaahu bihi khayran yusib minhu qofku ilaahay wanaag la doono uu taabtaa waa la imtixaanaa waxbaa la gaadhsiiyaa imtixaannaa ku yimaada waa qofka ilaahay wanaag la doonay ilaahay wuu imtixaamaa waayo imtixaankaa ku yimi ilaahay darajooyin buu kor ugu qaadaa dembiyana waa loogu dhaafaa musiibadaa ku dhacday kuwa ka waaweynna waa lagaga celiyaa hadduu de ilaahay u soo noqdona alla subxaanahu wa tacaala kor buu u qaadaa mansiladiisa iyo darajadiisa idan musiibadiiba waxay isu beddeshay wanaag iyo khayr bay isu beddeshay man yurid illaahu bihi khayran yusib minhu taa waxaa sii caddaynaya xadiidkii bukhaari iyo muslim ay isku waafaqeen nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka mu'minkaahi wuxuu ka dhigan yahay sida zarca oo kale dalagga oo kale dhirta khudaarta ee aan waaweynayn ee aan lahayn dhudhunka aan lahayn muddo badanna aan jirayn mu'minku kaasoo kaluu la mid yahay tufayu'aha ariixu mara wa tacdiluhu mara dabaysha ku soo dhacda marna way seexinaysaa marna way soo kicinaysaa wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wamahalu lmunaafiqi kaalarza qofka munaafiqa ahina gaalkiina waa la mid waa sida geedkii weynaa oo kale siduu u taagan yahay xataa yakuuna injicaafuhaa mara waaxida ilaa hal mar siduu u taagnaa ayuu hal mar dhacayaa taa macnaheedu waa maxay wuxuu idhi nabigu calayhi salaatu wasalaam kadalika almu'minu yukafaw bilbalaa qofka mu'minkaahi waa sidaasoo kale waxaa lagu gedgedinayaa imtixaanooyin xaalka muslimkaasaas waa lagu maydhayaa waa lagu nadiifinayaa ilaahay baa lagu xidhayaa waa qof ilaahay khayr la doonay qofka la taabanayo la imtixaamayo laakiin munaafiqa iyo gaalka sida loogu nicmaynayo ee uu isu leeyahay waad u raaxaysanaysaa ayaa hal mar nafta laga qabanaya dabeedna wuxuu gelayaa cadaab weligiiba uu ku waaro taa macnaheedu ma aha qofka mu'minka ahi inuu dalbado ibtilooyin iyo imtixaan oo hadduu dadaalo ilaahay uu isku xidho oo aan la imtixaamin oo xaalkiisa la isugu toosiiyey waa fadlun min allah waa fadliya gallad alla uu siiyey weeye laakiin waxaynu ka hadlaynaa ka imtixaanku ku dhacay inuu dareemo alla subxaanahu wa tacaala inuu wanaag la doonay xadiid kale wuxuu tilmaamayey maalinta qiyaame waxaa loo qaybsamayaa ahlu caafiyatin wa ahlu ibtilaa kuwa adduunyada lagu dhibay oo lagu imtixaamay cidhiidhi badani soo wajahay iyo kuwa adduunyada caafiyo iyo caafimaad iyo xaalad wanaagsan ku noolaa xisaabtii baa la gelayaa ahlulcaafiya kuwii badqabka adduunyada ku joogay markay arkaan ahlulbalaa waxa ajaree la siinayo waxay tamaninayaan oo jeclaysanayaan markay adduunyada joogeen in la imtixaami lahaa oo imtixaanooyin ku iman lahaayeen laakiin waa marka aakhiro la tago ee la arka ajarka la qaybinayo laakiin hadda saacaddan aad joogto balaha saadsan nabigu waa inooga diga calayhi salaatu wasalaam qofku inuu dhibaato u yeedho bal nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam markii jihaadka la gelayay laa tatamanaw liqaa'a alcaduw gaalada inaad dagaal la gashaan oo la kulantaan ha jeclaysanina ha ku farxina waayo waa imtixaan waa lagu xanuujinaya in takunuu taalamuuna fa inahum yaalamuun
lugahaagii baa la jaraya, qacmahaagii baa la jaraya, naftii baa lagaa qabanaya, dhaawacyo waaweyn baa lagu soo gaadhsiinaya. waa laga yaabaa inaad baqdo oo aad daba jeediso oo dembi weyn aad ku dhacdo. waa imtixaan. haddaad sabirtana dee wax weyni ku soo gaadhaan ama aad saa ku socoto. mar walbana qofku inuu sii noolaado cibaadaysto ayaa ka khayr badan xataa inuu shahiid noqdo. oo ninka shahiid noqonaya iyo ka dambeeye cibaadaysanaya cimrigiisa la dheereeyey waxaa ajar badan oo khayr badan ka ramadaanta iyo salaadaha badan sanawaadka badan tukanayay baa ka khayr badan sida xadiistu inoo sheegayso. marka musiibo looma yeedho, laakiin ogow haddii ay kugu timaado alla subxaanahu wa tacaala inuu wanaag kula doonay. sidaa awgeed ayaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ashaddu nnaasi balaa'an alambiyaa uma alamhalu falamhal. dadka waxaa ugu imtixaan badan oo adduunyada lagu dhibayaa ambiyada, dabeedna waxaa ku soo xiga xagga imtixaanka iyo ibtilada dadka ku soo xiga, dabeedna kuwa ku sii xiga. kuwa ugu liita, ugu dembiga badan, ugu gaabiska badan waa kuwa ugu imtixaanka iyo ibtilada yar bay noqonayaan. kaasi waa miftaax. wuxuu leeyahay alla subxaanahu wa tacaala xadiisu lqudsiga, ana cinda xusni danni cabdii bi. anigu addoonku waxa uu iga fisho ayaan u samaynayaa. hadduu wanaag iga fishana wanaag baan siinayaa, hadduu dhibaato iga fishana dhibaato unbuu iga helayaa. falyadunna bimaa shaa, wuxuu doonaa ha iga fisho. idan marka musiibadu kugu timaado inaad wax wanaagsan alla ka filato oo qofku uu yidhaahdo ilaahay caafimaad buu siinayaa, waan ka baxayaa, faraj baa imanaya, waa la iga faydayaa, xaalkaygu sidan waa ka wanaagsanaanayaa, ku waari maayo, waan ka baxayaa. iyada lafteedu waxay furo weyn u tahay, waana qodobka koowaad in alla subxaanahu wa tacaala dhibkaa kaa saaro. waayo ilaahay baa kuu ballanqaaday waxa aad ka filato inuu ku siinayo. laakiin qofku hadduu sida kale u dhigo uu yidhaahdo way ka sii daraysaa, tani waa sahal, mid ka weyn baa soo socota, tan laga kici maayo, waxa weeye dee xaalkiisu saasuu noqonaya. odaygii nebigu soo booqda calayhi salaatu wasalaam ayaa nebigu ducadii laynoo jideeyey buu ku dul akhriyey. wuxuu idhi laa ba'sa tahuurun in shaa allah. dhibi ma jirto, bala ma jirto, waad ka caafimaadaysaa in shaa allahu tacaala ayuu nebigu ku yidhi. odaygii baa soo booday, wuxuu idhi kalla, sidaa maaha buuhi nebi maxamedo, bal xummaa tafuur, waa xumad karkaraysa buu calaa shaykhin kabiir. oday weynna ku dhacday, nin dhallinyaraha ma, oday weyn ku dhacday, tusiiruhu alqubuur, xabaalahana geenaysa. nebigu wuxuu idhi haddaba waa iyada wey, sidii buu ku socda. ducadii nebigu diiday calayhi salaatu wasalaam inuu ka caafimaadayo. aamiin hadduu odhan lahaa waa ka kici lahaa, laakiin wuxuu qadiyaddii u bedelay inuu u sii socdo xabaalaha, uu sii socdo tii uu doonayey ilaahay uu ka filanayey, tii baa looga dhigay. miftaaxa labaad waa taqwa allaahi subxaanahu wa tacaala, in alle laga cabsado. waxaynu soo sheegnay ka dhibka keenay waa alle, ka faydayaana waa alle subxaanahu wa tacaala, ka adduunyadan iskale waa alle subxaanahu wa tacaala. alle subxaanahu wa tacaala haddii aad ka baqdo, wixii uu ku faray aad samayso, wixii uu kuu diidayna aad ka joogsato, ilaahay wuxuu kuu ballan qaaday inuu dhibaatoo dhan kaa saarayo. waman yattaqi illaah yajcal lahu makhraja. qofka alle ka cabsada ilaahay faraj iyo meel badbaado ayuu ilaahay dhib kasta uu uga sameeyaa. waman yattaqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusra. ka alle subxaanahu wa tacaala ka baqa, wixii ku cuslaaday ee dhibay ee ku adkaaday ilaahay fududayn ayuu ilaahay u diyaariyaa oo u siiyaa. waa ballanqaad. alla ka cabsi baa adiga lagaa doonayaa. ilaahayna wuxuu ku xidhayoo shardi u ah oo uu kaga jawaabayaa shardigaas inuu kuu fududaynayo xaalkaaga iyo faraj inuu ku siinayo ayuu alle subxaanahu wa tacaala uu kuu ballanqaadaya.
furaha saddexaad waa التوكل على الله الله سبحانه وتعالى إلا تلصارته. التوكل واحد معنيس والاعتماد على الله في دفع المضار وجلب المنافع. إلهي إن أدو عسكته ولا نقطه ولا إيرته إنه دبك كاقاضه وناقنا كوكينه حنونك كاقاضه عافماده كسيو فقرك كاقاضه كفاية يهضنتنما وكوكو بدلو امتحانك وكاساره بدقبه وكوصاره إن الله سبحانه وتعالى لكاشته. ومن يتوكل على الله فهو إيش؟ فهو حسبه. قفك إلهي تلصارت إلهي بكفلا. نبي محمد عليه الصلاة والسلام بوحى الليلي قال دي با إسوكا صوبها يستيو كوكو صعدا طبعا وحو كجواب حسبنا الله ونعم الوكيل. إلهي با نغفلا مثل تلصارتنا إلهي با وغوناكسن. نبي إبراهيم با يري عليه السلام markii loo qoday god aad u weyn oo muddo la shidayay la diyaarinayay ayaa la soo dul istaajiyay iyadoo ciidan badan ay wadaan. markuu arkay dabkii lagu tuurayo wax awoodaya wax xeeladan aanu lahayn wuxuu yiri xasbuna allah wa ni'mal wakiil. ilaahay baa igu filan mid la tala saartana ilaahay baa ugu wanaagsan. tabaadna dabkii muddada la shidayay baa ilaahay wuxuu ka dhigay qabow iyo badbaado الله سبحانه وتعالى وكبدلي. وكلمة داويري مؤمن آل فرعون نكي وحوي فرعون قيسكي ساهايا مؤمن كهايا إسلامي مركوانيني ولبنا وانا ذا وككل لي بقركي فرعون يعيدا كيسي والله فيلا يد إلا عقابي وحولي فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا. وحروحنا ندكوا أننا يدبت كحصوصا تناخروا تلذ إذن إلهي بان وديبت وإلهي بان تلصارنا إياه ووحو قرين مويانا وحنيقو صمين ميسان. إلهي وحاولي فوقاه الله إلهي وحو كبد بادي سيئات ما مكروا حمانتي أي كل كريين با إلهي كبد بادي. إلهي إنا تلصارته وعاد تلصارته نبكا كوكو عضينو كافيدو وفروين oo waxa weeye dhibka lagaaga faydayo. qodobka afraad waxyaabaha dhibka lagu faydo waxa kamida kathratul istighfar. istighfarta ila badsado ilaahi dambi dhaaf illa weydiisto oo waxa weeye la badiyo. istighfartuna waa ilaahi dambi dhaaf illa weydiisto. xulay nabiga calayhi salaatu wassalaam waxa wanaagsanaaday jannana ay u sugnaatay ninka maalinta qiyaamo buugiisa ka hela istighfaar badan ka hela ninkaasay janna u sugnaatay oo waxa weeye wanaag ugu sugnaaday. istighfaartu aad bay u qiimo badanta. waxaynu sheegnay masaa'ibta inugu imanaysa in badan oo kamida waxa keenaya dambiye inagu aynu gallay. dambiyada ilaahay dambi dhaaf haddaad ka weydiisato oo dambigaasi uu keenay musiibooyinka uu keenay oo dambigii ilaahay uu ku dambi dhaafo musiibadiina farajkeedii baa imanaya oo ilaahay waa ka faydaya. waxaad badsataa istighfaarta badso. mid labaad baa u yimi wuxuu yiri madhalays baan ah waxaan ka cabanayaa ubad la'aan ubad baan u baahana istighfaarta badi buu. mid saddexaad baa u yimi wuxuu yiri beertaydii way qallash waxa weeye abaar baan ka cabanaya iyo biyo la'aan istighfaarta badi buu. raggii la joogay baa waxay yiraahdeen xaalado kala duwan iyo duruufo kala duwan bay sheegteen adiguna hal dawo iyo hal jawaab baad siis. wuxuu yiri waxaan siiyay alla wiina siiyay فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إلهي الدنب داف ويديست يرسل السماء عليكم مدرارا إلهي ربك ويدين شبيا ويمددكم بأموال أداد فقيرها إن حلال وسينيا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا
ilaahay wabiyaal iyo beero wanaagsanna waa idin siinaya. idan istighfaarta in la badiyaa waa furo weyn oo farajka keenaya. qodobka shanaad waa as-salaatu ama kathratu as-salaati cala al-habiib al-mustafa alayhi salatu wassalaam. qofku inuu badiyo nabi maxamed alayhi salatu wassalaam inuu ku saliyo, inuu u duceeyo. salliga la badiyo nabiga alayhi salatu wassalaam iyadana dhibka lagu faydaa. ubay ibn ka'b markuu nabiga la hadlay alayhi salatu wassalaam waxa uu ku yiri nabi allah ducooyinka aan ducaysanayo maxaan ka siiyaa? ma ku siiyaa 4 meelood oo meel oo markaan ducaysanayo hal meelna salligaagan ka dhigaya, 3 kalena ana ducaysanaya. wuxuu yiri nabigu way wanaagsan tahay laakiin haddaad ka badisana ku sii wanaagsan. wuxuu yiri haddaan ka dhiga 3 meelood oo meel, 2na anigu aan qaato danahay, midna adiga aan kuugu duceeyo. wuxuu yiri nabigu waa wanaagsan tahay laakiin haddaad ka sii badiso way ka sii wanaagsantahay. wuxuu yiri nabi maxamed haddaan kala bar ka dhigo oo nusna anigu aan qaato ducadii, nusna adiga aan kugu saliyo ku duceeyo, illa salligu waa duca nabiga inuu ducaynay alayhi salatu wassalaam. wuxuu yiri nabigu alayhi salatu wassalaam waa wax wanaagsan kala bar inaad siiso, haddaad ka badisana ka sii wanaagsan. wuxuu yiri idan aj'alu laka salati kullaha ya rasuul allah, ducadaydo dhan baa nabi allah ku siinaya. nabigu wuxuu yiri alayhi salatu wassalaam idan xilligaas tukfa hammu waxa ku walwal gelinaya ilaahay baa kaaga filaanaya. xanuun baa ku walwal gelinaya ilaahay baa kaaga filan. faqri baa ku walwal gelinaya ilaahay baa kaaga filan. ubad la'aan baa ku walwal gelinaysa ilaahay baa kaaga filan. oo macnaheedu yahay wixii cidhiidhiga iyo diiqada iyo walwalka kugu keenayay ilaahay meesha waa ka saaraya, ilaahay baa kaaga filaanaya. wa yughfaru dhanbuk, dhanbigiina waa lagu dhaafaya, dunuubtaadina waa lagu dhaafaya buu nabigu alayhi salatu wassalaam. idan nabiga in lagu saliyo oo salligiisa la badiyo iyaduna waa sabab weyn oo dhibka lagu fiido. waxaana iska wanaagsan qofku markuu ugu yaraado gelinka horena inuu 10 jeer ku saliyo nabiga alayhi salatu wassalaam, gelinka dambana uu ku saliyo oo nabigu leeyahay ninka hal mar igu saliyo 10 baa ilaahay ku salinaya. man salla alayya waahida salla allahu alayhi biha 10. oo 10 jeer gelinka hore hadduu la yimaadana waa 100 jeer oo ilaahay adiga uu kugu salinayo, uu ku ducaynayo, uu ku naxariisanayo. gelinka dambana haddaad 10 jeer nabi maxamed ku salido waa 100 jeer oo ilaahay uu kugu salinayo oo uu ku naxariisanayo oo uu ku ducaynayo. 200 oo jeer inuu ilaahay ku naxariisto de qofka noocaas ah dhibaataba ku iman mayso. faraj iyo fayd iyada ayaa ugu filan. qodobka imsaad baa ku xiga, imsaadu marayna shanaad baynu ka baxna, kii lixaad wey. qodobka lixaad waxa uu yahay waxyaabaha farajka keena waxa ka mid ah qofku inuu leeyahay camallo wanaagsan oo VIP khaasa gaara macno weyn ku fadhiya inuu leeyahay. salaadii de maghrib waa tukanay, cishaa waa tukanaynaa, ummadoo dhan baa tukanaysa, waana waxaad u qiimo badan. laakiin camal aad ku tala gashay oo aan faral kugu ahayn oo aad u qiimo badan oo adiga iyo ilaahay idin dhaxeeya oo gaar ku ah, camalka noocaas cid waliba waxay og tahay inuu daacad yahay. camalka ilaahay inaan cidna lala wadaajinayn ayaa cid waliba dareensan tahay. ikhlaaska halkii ugu dambeeyay buu ka gaadhay. qofka taas samaynaya iimaan wanaagsan buu leeyahay, waxyaabo badan baa keenaya. camalada noocaas ee gaarka ah ee qofku uu qarsanayo ee u gaarka ah, camalada noocaasna waa kuwa badbaadada keena wey. markay dhibaata kugu timaado ayaad alle subxaanahu wa tacaala ku baryaysaa
ilaahayow waadigii ogaa sidaa iyo sidaa inaan sameeyey ilaahayow waadiga og maalin walba hawshaa inaan qabto aad jeceshahay ilaahayow waadiga og habeenkii inaan sidaa sameeyo camalkaasi wuxuu noqonayaa camal aad ku badbaado waa ogtihiin saddexdii nin qisadii caanka ahayd ee nebigu inooga sheekeeyey ee ummadihii tegey ka midka ahaa ee iyagoo socoto ah ayaa roob helay dabeedna waxay ka galeen god bay ka galeen iyagoo ka jirsanaya roobka dabeedna dhagax weyn baa buurtii ka soo dhaadhacday oo ka soo degtay dhagaxii wuxuu daboolay godkii ay ku jireen afkiisii buu daboolay cidi kuma oga mobayl iyo dee telefoon lagu hadlana xilligaa lama hayn waa nebi maxamed horti calayhi salaatu wasalaam waa meel cidla ah waa buur gunteed hoosteedii dhagax weyn baa ku daboolay waxa ay sitaan cunto iyo sharaab dee waxa weeye maalin 2 cisho hadday waddo halkaasay marka dambe ku fidigayaan oo ku dhimanayaan waxay arkeen dhib weyne inuu ku dhacay intay sidaa isu eegeen bay yidhaahdeen maanta waxa keliya ina badbaadinaya waa ilaahay inaynu run u sheegno qof waliba camal aanu ka been sheegin oo acmaasha uu sameeyey uu isleeyahay waa ta ugu qiimaha badan maanta ilaahay ha inoogu baryo mid waliba camal buu xasuustay aad u qiimo badan mid waa kii ku ducaystay in waxa weeye shaqaale inta uu qaatay mushaharkoodii uu siiyey nin shaqaalihii ka mid ah oo ay ku heshiiyeen bariis inuu siiyo inaanu isagu qaadan mushqaayadiisii oo uu ka tegey sanawaad buu ka maqnaa wuxuu yidhi waxaan qaaday wixii aanu ku heshiinay bifaraqin min aruz dabeedna waanu u beeray buuri midhihii ka soo baxay baan iibiyey waxaan ugu iibiyey lo' baan ugu iibiyey lo'diina way isdhashay wuxuu yidhi sanawaad ka bacdi buu ii yimi wuxuu yidhi mushqaayadaydiisii wuxuu filanayaa waxoogaagii beriga ay ku heshiiyeen wuxuu yidhi waxaasoo lo' ah iyo beertaa wax waliba ka baxeen intaba adaa iska leh halkaa kala bax ninkii waa u qaadan waayey wuxuu yidhi ilaahayow adiga dartaa haddaan sidaa u sameeyey oo ninkii xoolihiisii intaan u ilaaliyey welibana u tarmiyey welibana aan waxba aanan ka khiyaamin ilaahayow adiga dartaa haddaan sidaa u sameeyey ilaahayow naga fayd 3 meeloodoo meel baa laga fayday kii labaad isna camal weyn buu sheegtay wuxuu yidhi labadayda waalid ayaan fiidkii caana u soo lisi jiray caanahana iyagaan dhamin jiray intaanan siin ubadkayga habeennada ka miday ila fogaatay waan soo habsaamay buuri labadii waalidoo gaboobay ayaa iga seexday buuri xaaskii iyo ciyaalkiina waa soo jeedaanoo caanay doonayaan ay ku seexdaan way gaajoonayaan buuri yatadaaqawna min aljuuc waa yuus cod marka la bixiyo gaajo awgeed carruurtu ay bixiyaan gaajo awgeed wuxuu yidhi waxaan la dul istaagay hadhuubkii labadii waalidoo seexday wuxuu yidhi waxaa igu adkaatay inaan caanaha u toosiyo waan idhaahda caanaha cabba oo hurdadii aan ka kala gooyo wuxuu yidhi waxa kaloo igu adkaatay taasi waa igu adkaatay buuri waxa kaloo igu adkaatay inaan ka dul dhaqaaqo aan isidhaahdo ciyaalkii layagaba caanuhu ugu talagalo caanuu hayee ciyaalka caanaha siisii inta iyagu kacayaan dabeedna ay soo kacaan iyagoo gaajoonayo aan ka soo habsaamo taana waan ka baqay buuri sidaan markii horeba uga soo habsaamay wuxuu idhi saan hadhuubkii ula dul taagnaa aan isu lahaa talo hadday kacayaan ayaa salaaddii subax laygu addimay buuri oo waagii igu bari ciyaalkiina habeen oo dhan oohin gaajo ay loo ooyayaan ciyaalkii u dhalay cid waliba waxay ogsoon tahay ma aabbahaa baad u beer jilicsan tahay mise kaa dhashay labada waa kii ma aabbahaad u naxariis badan tahay mise kaa dhashay si kale haddaan u dhigo nusuustuma waxay aad inoogu boorisay aabbaha in la wanaajiyo mise ubadka in la wanaajiyo sharcigeennu wuxuu ku dhisan yahay
waxa naftu ay iskaga talaalan tahay aad laynoguma guubaabiyo ubadka inaynu u roonaano way nagu talaalanta iyagaynu u badanna sida awgeed aayado badan iyo axaadiis badan oo nagu waaninaya ma jiraan xuquuqdooda in laga soo baxo si guud baa loo sheegaa laakiin waalidku isagoo gaboobay buu adiga ku walwalaya adoo dhaqaale dhaamo oo caafimaad dhaamo oo ka xoog badan oo ka jaanis badan ayuu adiga ku walwalaya laakiin sida uu adiga kuugu walwalayo adigu ugu walwali maysid waxaad ugu walwalaysaa ubadkaagaad ugu walwalaysa marka ninkaasi labada waxay ahayd inuu u beer jilicsanaado ubadkiisa taasuu ilaahay ku dabiicay tiibuu khilaafayo labadii waalid buu daneeyey tiina waa lagaga fayday qayb baa lagaga fayday qaybta saddexaad waa ninkii inanay ilmaadeer yihiin ka helay dabeedna damaaciyey inuu ka sinaysto dabeedna ay ku tidhi ilaa aad keento boqol dahaba ilaa aad keento naftayda ku siin maayo ee shaqo tegay ma hayn waayo markaa hadduu qacanta ku hayo waa shubi laha ila markaasuu hungureeyo uu doonayey magaaladuu galo mudduu maqnaa intay ku qaadato allahu aclam laynoma sheegin laakiin mudduu u soo tabcaday gabadhaa inuu boqolka siiyo nafteedana wuxuu ka doonaya inuu ka qaato markuu boqolkii soo helay buu yidhi hoo dabeedna dee waa ballane waa isu diyaarisa markuu dhex fadhiistay labadeeda lugood dhexdooda ayay tidhi ittaqi illaah walaa tafudda alkhaatama ilaa bixaqi bikaray ahayd ilaahay ka baq bakaaradana ha ku jabin xaqiisa mooyaane wax kale xalaal mooyaane wax kale ha igu bikara jabin dabeedna wuxuu idhi ilaahay dartii hadda boqolkiina waa bixiyey waana wuxuu intaa u soo shaqaysanayay ayaan iskaga tegey buu idhi boqolkiina waan u daayey buu idhi ilaahay dartii baan ugu daayey camal weyn buu ah ilaahay qaybtii ugu dambaysay buu kaga fayday qisadaa waxaanu ka qaadanaynaa ma leedahay maanta culays hadduu kugu yimaado camal wanaagsan oo aad is leedahay wallaahi maanta camalkaasun baan ku anfacaya kaasun baad maanta iibgeyn kartaa oo dhibkan kaa faydaya qof waliba naftiisa isagaa xisaabinaya ragga qaar caliy ibnu alxusein zayn alcaabidiin xaafad iska dhan ayuu habeen walba masaariifta yowmiyahay cunaan ayuu halkaa u soo dhigayay habeen barhka marka la seexdo way la qabsadeen subaxii markay toosaan bay albaabka furaan waa salladan hadda aynu qaadano 10 laana 50 laana hadba inta la biishado ayuu albaabka u dhigaa habeen barhka way qaataan intaasoo sanuuda cidimay ogeyn kuwa qaataa may ogeyn haddana dee igu sawir baa iska badanoo haddii shilin yar la bixinayo dhowr tv baa loo yeedhaya lacag kale lagu bixinaya waxaa la ogaaday maalinkii uu dhintay baa la ogaaday gelinkii dambaa la aasay habeenkii baa xaafadihiis ka soo tooseen dabeedna meesha waxba ma yaallaan dabeedna waxay ogaadeen xaajigii dhintay maantee la aasay inuu ahaa halkaasaa lagu ogaaday hawshiina halkaasay isku taagtay alcamal asaalix isagana badbaadaa ku sugan marka qof waliba ama salaatuleyl ha noqoto ama sadaqa ha noqoto ee camal kuu gaara maalin kasta qofka hadduu yidhaahdo kun laana masaakiintaa iska wareegaysa maalin walba kun laana baan ilaahay dartii aan cidiilo ogeyn baan camal gaara ka dhiganaya iyo cibaado gaara uu samaynaya wixii la mida waa wax dhibka lagaga faydayo ilaahayna uu ku baryayo maalinka waxa weeye loo baahdo qodobka 6 7 waa musaacadatu nnaas dadka in la caawiyo dadka in loo gargaaro dadka waxa weeye in wax la taro nafci gudbaya inaad samayso dadka dhibaataysan dhibka inaad ka qaado kuwa la cusleeyey inaad wax u fududayso iyaduna waa faraj weyn sida nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam man nafasa can mu'minin kurbatan min kurabi addunya nafasa allahu canhu kurbatan min kurabi yowmi alqiyaama qofka qof mu'mina dhib ka fayda adduunyada dhibaatooyinka iyo kurbooyinka aakhiro ayuu ilaahay ka faydaa adduunyadana kurbooyin badan baa ilaahay kaga faydaya qof waxa weeye waman yasara calaa mucsirin yasara allahu calayhi fi dunya waalaakhira
ninka u fududeeya qof la cusleeyey ilaahay adduun iyo aakhiro hawlihiisuu u fududeeya ayuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam. axaadiista macnaha ku timi aad bay u badan tahay. waxa weeye masaaricu alixsaanu ila annaas taqii masaarica suu. qofka dadka u samafala si xun uma dhintaa layidhi, waayo meel walba waxaa u jooga cid uu u samafalay, ama wejigiisa ha ugu samafalo, ama jeebkiisa ha ugu samafalo, iyo magaciisa, awooddiisa iyo xooggiisa. qofku hadduu dadka u samafalo waxa weeye si xun u dhiman maayo sida laynoo tilmaamay. qodobka 8aad asalaa waa salaadda in lagu dadaalo. markaynu salaad leenahayna dee salaadina waa salaad zero ah oo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam wax saamayna iyo wax ajara inaanay lahayn. waajibka unbaa kaaga dhacaya, laakiin wax saamayna noloshaada ku yeelan mayso. salaaddaynu ka hadlaynaa waa salaad lagu khushuucay, salaad qiimo leh, salaad qofku uu soo jeeda qalbigiisu, salaad uu fahmayo waxa uu ku hadlayo, wuxuu ilaahay kula faqayo, ficilada uu samaynayo. waxa weeye salaadda noocaasa ayaa keenaysa saamaynta keenaysa. ilaahay wuxuu uhi wastaciinuu biالصabri waالصalaaة. waxaad kaashataan salaadda iyo sabirka kaashta. welibana dee kaalmo waxaynu u baahannahay ma markaynu dhibaataysannahay mise markaynu barwaaqaysannahay keebanu aad ugu baahanna? labadaba waa u baahanna, lakiin waxaynu aad ugu sii baahannahay markaynu dhibaataysannahay kaalmada alle subxaanahu watacaala. ilahay wuxu uhi waxaa kaalmaysataan oo kaashataan salaadda hala kaashto. mar kale nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam salaatu lkusuuf, marka qorax madoobaadka ama dayax madoobaadku uu dhaco waa calaamad weyn, waa imtixaan weyn. wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam faidaa ra'aytum dalika fafzacuu ila asalaa. taa haddii aad aragtaan waxaad u argagaxdaan salaadda u argagax, xagga salaadda u yaaca oo u argagax. nebi maxamedna waa dhaqan geliya calayhi salaatu wasalaam kaana idaa xasabahu amrun afzaca ila asalaa. culays hadduu ku yimaado, dhibi hadday ku timaado, nebigu wuxuu u ordayey oo u argagaxayay xagga salaadda, ilaa uu ka gaadhay nebigu inuu yidhaahdo yaa bilaal arixnaa bisalaa. bilaalow salaadda noogu raaxe. salaadda miyaynu ku raaxaysannaa mise waynu ka raaxaysannaayo waynu ka nasannaa? dadka qaar waa maqasheen, maxay yidhaahdaan waar faralka aynu iska ridno, aynu iska turro, haynaga dhaco. waa ninka dad tuurta ku sito iska tuuraya wey. nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam adduunyada markuu ku dhex jiro, bilaalow salaadda nooqiin aanu ku nasannay, aanu ku raaxaysannay. waxaynu uga jeednaa salaaddu waxay tahay haddii sideeda loo tukado iyaduna waa faraj iyo fayd weyn wey. qodobka 8aad 9aad waa gabagabo, 2 qodob baa inoo hadhay. qodobka 9aad waa dikrullaahi caza wajal, ilaahay la xuso, ilaahay xuskiisa in la badiyo. alaa bidikri illaahi tadma'inu alquluub. xuska alle ayay qalbiyadu ku xasilaan oo ay ku degaan. waxyaabaha dhibaatooyinka lagu fayda waxaa ka mid a in horta dhibkiiba uu kuu fududaado, in dhibaatadii aad dhibaatada u arkaysay wanaagba ilaahay uu kuugu bedelo, oo xitaa dhibkii adoo ku sugan inaad ka dareento nicmo. qof baa waxa weeye ilaahay araggiisa ka qaado, waa imtixaan weyn. nabigu wuxuu yidhi qofka 2 indhood laga qaado ee ku sabra janna loogu bedelaya. waa ibtilo weyn, waa imtixaan weyn wey. laakiin markii indhihii laga qaaday buu masjidkii galay, cibaado u baydhay, xumaan ma arkayo, xagga filimada xunxun laga daawanayo maba arkayo, dumarkii qaaqaawaanaya suuqa maraya ma arkayo. waxaa buu dareemayba macaan iyo iimaan. waxa weeye iyaduna waa faraj iyo fayd alla subxaanahu wa tacaala dhibka uu kaaga faydayo.
qodobka tobnaad waxa uu yahay birul waalidayn labada waalid in loo samafalo labada waalid in laga ducaysto waayo markaad u samafasho ayay kuu ducaynayaan si kaliya laaba qofku markuu meel fiican gaadho ama xaaladihiisu isku toosaan waxay dadku yidhaahdaan waalidkii baa u duceeyey ducaa ku dhacday ducaa la socota haddii imtixaanaadku ku bataanna waxaa la odhanayaa waalidkii baa habaaray baa la odhanaya nabiguna waa sheegay calayhi salaatu wasalaam ilaahay cadhadiisu waxay ku jirtaa cadhada waalidka raalli ahaanshihiisuna wuxuu ku jiraa waalidku inuu kaa raalli noqdo wax sahlan maaha idan waalidka in loo samafalo in la wanaajiyo in laga ducaysto waa furo weyn oo lagu helayo faraj lagu helayo ayuu noqonaya qodobka ugu dambeeyaan ku soo gabagabaynayaa waxa uu yahay adducaa in alla subxaanahu wa tacaala la baryo in la ducaysto in ilaahay laysu bihimbihiyo falowlaa id jaa'ahum ba'sunaa tadaracuu ilaahay waxa uu yidhi markii dhibaatada yadu ay taabatay hadday annaga isu kaaya bihinbihin lahaayeen oo na baryi lahaayeen yacnii dhibka waannu ka qaadi lahayn xilliyada qaar ilaahay wuxuu doonayaa inuu kuu soo celiyo xaggiisa inuu ku xasuusiyo inaad u baahan tahay inuu kugu baraarujiyo baryadiisa oo aad dareentay markaa caafimaad iyo masaariif iyo axwaash isugu kaa toostay in laga yaababa qofku inaanu ducaysan oo uu yidhaahdo alxamdulilah ilaahay waa ii nicmeeyey waxba uma baahnin taasina ilaahay waa cadho gelinaysaa wuxuu leeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam man lam yas'al illaah yaghdab calayh qofka ilaahay aan waxba weydiisanay ka kaaftooma ilaahay waa u cadhoonaya bini aadamku in wax la weydiisto waa ka cadhoonaya ilaahayna in wax la weydiisan waayuu ka cadhoonaya wuxuu doonayaa in wax la weydiisto marka wuxuu ku imtixaamayaa inaad ilaahay barido oo aad ducaysato ducooyinkuna waa ducooyin caama oo dee qofku si guud u ducaysanayo ama uu ku ducaysanayo dhibkii haystay ilaahay inuu ka qaado oo haddii faqri hayay ilaahay oo faqriga iga qaad haddii ubad la'aan ay haysatay ilaahay oo ubad wanaagsanaysii inuu ku ducaysto waxaa kaloo jira ducooyin nabigu inoo sheega calayhi salaatu wasalaam oo loo yaqaana adciyat lkarb qofka dhibaataysan la doonaya inuu ku ducaysto qofka hayaana waa hayaa waa inuu mar kastoo dhibaata ku timaadaba ilaahay uu ku baryo qofka waxa weeye aan aqoonna inuu ducooyinkaas xisnulmuslimka iyo kutubta adkaartana waa laga helaya inuu xifdiyo oo marka dhibiba ku timaadaba ilaahay subxaanahu wa tacaala isu bandhigo marka 4 ducooyinku waa badan yihiin ayaynu insha allahu tacaala si gaara isu xasuusinaynaa oo aynu u tilmaamaynaa insha allahu tacaala ducada koowaad wuxuu hi nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo la hadlaya asmaa bintu cumays radia allahu tacaala canha wuxuu ku yidhi nabigu asmaay ma ku baraa kelimaad iyo ducooyin kurba hadday kugu timaaddo aad ku ducaysanayso haabay tidhi nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaad tidhaahdaa allaha allaha rabbii laa ushriku bika shay'an allaha allaha yaa allah yaa allah ilaahayow ilaahayow rabbii yaa rabbi rabbigayow ama anta rabbi rabbigay baa tahay laa ushriku bika shay'an baryadaadana cid kale la wadaajin maayo keligaa baan ku baryayaa kuu cibaadaysanayaa ilaahay oo dhibkayga fayd taada ku darsanaya laakiin inta lagu celcelinaya waa intaas allah allah rabbii laa ushriku bika shay'an ilaahayow ilaahayow rabbigayow cid kale kula wadaajin maayo dabadeedna kurbadii markaa kugu dhacday alla subxaanahu wa tacaala waa kaa faydaya ducada labaad
ودعادي وكدو عيستي نبي الله يونس عليه السلام النبي يقول الدعوة ذي النون وحوي كي نمرق وصاحبك ويونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلى حق لقو عابدا مجر إلهي موياني سبحانك حمان وردن إلهي وأذاك النزهن وكفك نقصاني عيب وردن أذا كفك إني كنت من الظالمين كو نفهد الظلمية بان كمده وحوري النبي قف مسلم كمد عيسته إلا إلهي وكا أجيبه وكا أقبله وكا كربا هديك قلت ماذا قد نبي الله يونس markii nimirigu uu liqay calooshiisa uu galay buu ku ducaystay oo musiibadaasi ay ku timi ayuu ku ducaystay ilaahina waa ka badbaadiyay waxaana halka aad ka arkaysaa tawxiidka kalimatu tawxiid saamaynta ay leedahay laakiin yay anfacda nabiyullaahi yuunus markuu sidaa leeyahay dhibaatadaasi ay ku timi wuxuu ahaa nin hore ilaahay ugu xidhan oo nabi oo ilaahay xusa oo muwaxid ayuu ahaa وينفع لكن نكي فرعون لورني مركي بدو اللي قضي محويري قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وإسلا كلمة التوحيد إلى حق لقو عابدا مجره أن كأهين كي بنو إسرائيل أي رميين والله ما ينفعين ويدهروا إلهي الضفرين بل إلهنما u sheegtay waxba uma tarin markay kurbooyinku imanayaan ee aad ducaysanayso waxa ka qayb qaadanaysa xaalkaagii hore ka qayb qaadanaysa xilligii barwaaqada ee dhibaatadu aanay kugu iman hadaad ilaahay ku xidhnayd codkaagu cod la yaqaanuun noqonayo la garanayo hore loo maqlay oo malaa'iktu xitaa ay oranayso waa cod aanu hore u maqli jirnay nin hore ilaahay u bari jiray buu نبينا وإنه شجع عليه الصلاة والسلام تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة إلهي واحد برتا حلقة برواقضة حلقة دبات تدو إلهي كو أبا القذية أو دبك كقاضية دعاء صديحات وتيو النبي كت المامي كلمات المكروب أما الدعوات المكروب كلمة دها أما الدعوين كقفك دبات تيسني أورانيا وأكون صعدة اللهم رحمتك أرجو إلهي يوم حريص تاضان فلانيا فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين إلهي يوم نفتي ذها تلصارا البرقس وحلك نفتي ذها يقسي الدين أذوق تلضي ذهي بدبادة ذهي نفتي ذها يقسي الدين أصلح لي شاني كله أحواش شيء دردن إلهي وإيواناج لا إله إلا أنت إلى حق لغو عابدا مجرو إلهي موياني تاسينا waa ducooyinka qofka dhibaataysan u gaarka ah marka ducooyinka caamka laga yimaado Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ayn aslih li sha'ni kullah la ilaha illa ant ma dheera mana badna كوجود ضبية النبي نوشيدي عليه الصلاة والسلام اللي يقان الدعاء الكرب ولا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ودمان تدعي تهي كلمات التوحيد إلى حق لغو عابدا مجره aan ka ahayn Allah weyn ee dulqaadka badan ilaa xaq lagu caabuda ma jiro aan ka ahayn Allah u saaxiibka arshiga weyn u saaxiibka ilaa xaq lagu caabuda ma jiro aan ka ahayn Allihii samaawaadka iyo dhulalka rabbigooda ahaa arshiga karaamada leh ama sharafta lana Allihii rabbigiisa ahaa oo dal looga jeedo allaha inaad u eeranayso xaqiisa u noqonayso isaga dhibka kugu dhacay aad u celinayso si Allah subhanahu wa ta'ala uu waxa weeye kaaga faydo
furayaasha 10 ama 11 haddii aynu dhaqan gelino marka imtixaan inagu yimaado musiiba inagu timaado Allah subhanahu wa ta'ala farajkeedu inoo furaya adduunyadana dasaynu bilowgii sheegnay imtixaan kama madna waa laga yaabaa qaarna inaynu dareensannahay qaarna inaynan dareensanayn mid baa wuxuu ka cabanaya ubad la'aan waa dhib iyo imtixaan asaagiyo ubad leh ayuu arkayaa dhib buu dareemaya waa kurbo mid baa ubad la siinaya laakiin ubadkii baa lagu sallidaya uu khaati ka istaagaya oo ku soo jeesanaya oo waxa weeye ku xumaanaya waa musiibo waa kurbo waxa weeye kurbooyinkaas oo dhan waxay ka mid yihiin saynu soo tilmaanay adduunyada ka mid yihiin waxa kaga baxaya dadka qaar baa waxay u ordayaan adduunyada inay ka waayaan wax imtixaan iyo ibtilaa oo waxa weeye u ordaya xaalad walba inay farxad ku jiraan iyadoo Allah subhanahu wa ta'ala aanu sida ka dhigin nin kamida boqoradii amawiyiinta al-khulafa al-amawiyiin oo caalamul islaami marka dunida oo dhan wixii muslim meel u joogaba ayuu u talinay hantiya dhaqaalana waahay wuxuu waxaan doonayaa maanta wax cidhiiriya iyo wax diiqada inaanan dareemin wuxuu buur dusheed waa meel buura dusheeda buu guri halayga dhiso maalin baan doonayaa inaan soo joogo cuntooyinkaan ugu jecelahay waa nooca ya nooca hal ugu goglo xaasas badan iyo adoomo badan oo boqolaal oo kala duwan oo jinsiyada kala duwan oo adoomo ana waa lahaa tii ugu jeclaana wuxuu yahay la iigay cidna yaana ii soo gali buur baabu saaraya hoostana ciidan baa jooga cid u soo gudbinayso waxa ula dunidu haday rugmanayso caasimada hadii la soo galo waxba yaan leeyla wadaagin wuxuu doonay maalinka labadeeda galin farxad inuu ku noolaado cuntooyinkii iyo goglihii iyo wixii markuu isku habaystay ayaa inantii uu jeclaa ee uu boqolaalka ka soo xushay ayuu ii qaad heesa iyo buraanbur iyo wax ii qaad إلهي بقى وحلالية أو ما ملكت أيمانهم وهي إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم مركي حوغا يساقون خضارتي وعنايو يدنا أيوها يسيسو ولبسكي قدام بياي حرانتاي قروح دي إذا يعود كيدا معانو كرا حيصاني ويسليها وحوكا ممغنا أيا اللاب مالو كي ما أن لقرانين انتو داقاد كسو قليب ودون تكاقري يساقو إيجي هل كاسو يسكتاي iyadoo aan cidi la joogin bay hortiisi ku dhimatay gabadhi oo dadka ugu jeclaa dabeedna wuxuu ka toobad keenay adduunyo aan lahayn waxa weeye walwal iyo diiqad Allah subhanahu wa ta'ala awoodiisu tus markuu doonay adduunyo isku toosan oo aan wax cidhiidhiya diiqad iyo walwal lahayn 24 saacadood inuu ku noolaado xaalad wanaagsan أيها الله سبحانه وتعالى حسوسيي من حيث لا يحتسب ما لا نوحكف لنين حقيقة الدنيا إلا تصو الدنيا ندبك ممنا لكن ندبك وحي لغا قدبيي ووحا إنو الشاقنا إن شاء الله تعالى أيقوم مهم سنتهي الله سبحانه وتعالى إلا قحد ناضو إساق الله نقضو الله بريو لو عبادة يستو inta aanu dhibku imanna Allah subhanahu wa ta'ala lagu xidhnaado ma jeceshahay barashada xifdiga quraanka kariimka fursad iyo chance aad ku barato ma weeyday hadaba waxaan ku hayaa dugsi waqti Allah iyo waqtiga chance hayso aad ka baranayso barashada xifdiga quraanka kariimka culumta shariicada islaamka waa madrasatul quraan online oo ay ku joogaan macallimiin aqoon u leh hadaba aad doonayso kala xiriir telefoonka shaashada ka muuqda بلنتين وان إنه كفاية سنو دكسيان مدرسة القرآن أونلاين